doorashada cabdiqaasim salaad waatan warbixintii wariyaayada axmed saciid cige oo magaalada hargeysa jooga. dadweynaha magaalada hargeysa oo caadiyan inkasta oo ay maalin walba iska waraysan jireen shirka soomaalida ee cadfadintii u socday laakiin ay yarayn inta ka daawato habeen walba suxuuta dayaxa gacmeedku oo aanay sidaasiba u darin jirin shirkaasi ayaa waxaa dhacday in dadweynuhu ay shalay iyo xalayba si xoog leh ugu dareereen goobaha lagu daawado filimada si ay ugala socdaan doorashadii uu baarlamaanka cabse lagu magacaabay uu ku dooranayay xalay jegada madaxweynenimada. dad badan ayaa saaka ii sheegay in ay u soo jeedeen ilaa iyo xalayka 3 habeenimo iyaga oo qaarkood kala socday idaacadaha caalamiga kuwana ay ii sheegeen in ay guryahooda iyo hudaalada waaweyn ay ka daawanayeen habka codaynta doorashadaasi. sheekada ugu weyn ee maanta lagu hadal hayay hargeysa waa shakhsiyadda dr cabdulqaasim salaad xasan oo shirka carta loogu doortay madaxweyne iyaga oo dad badani ay niyadda ay kala jireen xalay intii doorashadu ay socotay iyagoo ku sababaynaya in uu horaan u sheegay cabdulqaasim isagoo 2 jeer soo maray hargeysa in marka hore dowlad loo dhiso koonfurta oo aan la faragelin somalilan. hadalaynta dadka iyo rayo-caamka hargeysa ayaa u badan in dowladda lagu dhisay carta ay tahay dowlad koonfureed oo aanay khusaynin somalilan waxayna dad badani ay ku sheegayaan inaanay waxba ka qabin haddii walaalahooda koonfureed ay heshiiyaan oo dowlad ay dhistaan kadibna loo wada hadlo 2 dowladeed waa sida ay sheegayaan dad badani oo kala ah soomaaliya iyo somalilan. hase yeeshee sheekadooda waxa ay dad badan ay ku muujinayeen in niyad wanaagga loo muujiyo dr cabdulqaasim salaad xasan ay ku xidhnaan doonto hadba saantaanta isaga laga arko. jariidada keli ah ee ka soo baxday maanta hargeysa the republican ayaa iyadoo waxa ay qortay sida ay u dhacday doorashadu waxayna ciwaan uga dhigtay cabdulqaasim salaad xasan madaxweynaha dowladda soomaaliya ee dabad wareegta ah waxayna ay dad hore ay ku soo badhigtay ku muujisay jariidada the republican ee sawirka cabdulqaasim. si kastaba haatee waxaa u muuqataa in mowqifka rasmiga ah ee somalilan ee la xidhiidha xaaladahan u dambeeyey ee ka soo kordhay shirka carqaha uu soo bixi doono maalmaha maanta in lagu soo haya gaar ahaanna marka cabdulqaasim salaad xasan uu soo bandhigo qorshihiisa oo garinta la filayo. axmed saciid cige b b c hargeysa.